barakaatu kulanti habboon oo wanaagsan mudane iyo marweyn halkani waa gabar media waxaanu haynaa wadadii 2k aanu ku gaari lahayn insha Allah waxa ka codsanaya si sharaf ah ka codsanaya ina ka mid noqotid dadka igaarsiin lahaa hadda hore aad nolol joogtay waa ku maasan tahay runtii maanta ma aha barnaamij ma aha heeso maanta waxa ka bixinaa waa qiso jacayl ma sha Allah qiso jacayl oo kismay ka dhacday oo baraha bulshada Soomaaliyeed dambeysay haysatay ma sha Allah okay bal muuqaalkan ila daawo wadada ku nool waana mid u dhaxeeya farxad ama murugo qaabo ila daawo muuqaalkan jacaylku waa dareen ku dhex beerma nolol kasta oo dunida ku nool waana mid u dhaxeeya farxad ama murugo qaar buu waqtigu saaciday oo jacaylka u samaaday halka kuba kalena uu farxadda kala tagay qaar ayaa la gudgalay oo uu ka mid yahay macallinkii weynaa ee jacaylka cilmi boodari maanta sheekadeena waa la kulanka 60 sano jir 30 sano ka hor iyo 5 sano jir u waasay 30 sano ka hor jacayl ka hor waa wiil shaqaysanayay beeraha tabcanayay gabar baysalaan waysbarteen ma sha Allah adoo wixii uu dahab iyo wixii uu maal hayay gabadhii uu isri ku doon misana beertiisii dhulkiisii hadiisii intuu iibiyay ayuu aaday caasimadda Muqdisho oo lacag ahaan ugu soo bedesho oo gabadha uu jeclaa ugu doono balse qisadu maxay ku dambeynaysaa ila daawad muuqaalka wuxuuna 30 sano darbi u fadhiyaa cadaalad u helidda gabadhii jacaylka uga baxday maxamed cabdinuur oo ku magac dheer adeera waxa uu ahaa beerley ka hor inta uusan dhex dabaalanin muujadaha jacaylkan maanta waalay waxayna xiriir jacayl oo dhaba wada lahaayeen gabar ka mid ah dadka deegaanka Koban oo magaalada Kismaayo dhanka waqooyi ka xigta beerley ayuu ahaa wuxuu dhex dabaashay muujadaha jacaylka runtii haye uu iibgeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka beecgeyntiisii kadib lacagtii dalga loogu iibsaday ayuu gacay sidiisa xoogaa dahab iyo dhar uga soo iibiyay inta kalena waxa uu ku soo riday juwaan si uu ugu doonto gabadha waana sooriyadii reerka balse intii uu maqnaa ay tala faraha ka baxday kadib markii gabadhii uu jeclaa ay ninka la raacday lana aqal gashay wuxuuna hadda oo 30 sano qisadiisa ay ka soo wareegatay wali garabka ku sidaa juwaankii uu ku waday lacagtii sooriyada ahayd balse hadda uusan isaga ogeyn in qashin loogu buuxshay waxayna xiriir jacayl oo dhaba wada lahaayeen gabar ka mid ah dadka deegaanka Koban oo magaalada Kismaayo dhanka waqooyi ka xigta waxay ku ballameen xilligaasi guur wuxuuna go'aansaday in tacabkii beertiisa uga soo go'ay uu badnaasay si uu u iibgeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka beecgeyntiisii kadib lacagtii dalga loogu iibsaday ayuu gacay sidiisa xoogaa dahab iyo dhar yani jacayl kadib waxay ku heshiiyeen guur wuxuu go'aansaday inuu dalgiisii beeraha u iibgeeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib soo noqodkiisii wuxuu siiyay in yar lacag iyo in yar dahab siiyay laakiin qisadu ma dheera saasna qisadu uma sii foga qisadu waa taariikh dheer bal ina kadib isku soo noqon doona DJ fasax heestaas adoko balan balade adoko beraqade adoko waqaya de badbaadu karabade ureqayso jawaabde okay hadaba let's go qisada dahab iyo dhar uga soo iibiyay inta kalena waxa uu ku soo riday juwaan si uu ugu doonto gabadha waana sooriyadii reerka balse intii uu maqnaa ay tala faraha ka baxday kadib markii gabadhii uu jeclaa ay ninka la raacday lana aqal gashay wuxuuna hadda oo 30 sano qisadiisa ay ka soo wareegatay wali garabka ku sidaa juwaankii uu ku waday lacagtii sooriyada ahayd balse hadda uusan isaga ogeyn in qashin loogu buuxshay maxamed tala ayaa ku ciirtay wuna rumaysan waayay waxa gadaashiisii dhacay ka waran adiga oo gabar doonaya lacagtii sooriyadii reerka si lahaa ay la hadda wali dhabarka ayuu ku sidaa maantana waa 5 iyo 60 jir ka waran waa 30 sano ka hor ilaa hadda wali wuxuu banaanka maxkamadda u hortaagay inuu cadaalad u helo runtii waa dawladii kacaankii maxamed siyaad barre intay jirtay weeyaan qisadani runtii kawdhay jacaylku yar ma galo
jacaylkooda dadka qaar waxay moodaan inuu yahay jacaylku mood wax beena laakiin dadna way u gudgaleen dadka qaarna way gaarkay inuu ku waashay runtii tiimka barmedia okay haye balse hadda jawaanu ka soo buuxiyay lacagtii gaari uu soo raacay kaban uu ku soo degay wixii asoo dusha u soo saaray garabka uu kaban la imaaday kaban markuu imaaday kow aniga asaga iska hor imaanay waxaan u sheegay gabadha in la guursaday oo nin ay u degan tahay ninkuu isku naxay naftkayga waxaan yidhaahday bal maxaan iyo ninka ugu sheegtay meeshii ninka looguma dambeeynin arrintaas aaway jacaylkii gabadha ka wada dhexeeyeen ayuuna u waashay maadaama la yidhaahda gabadhi waa la guursaday asaga hantidii uu ku guursan lahaa gacanta uu ku haay filawaay la noqotay naxdin iyo jahwareer jacayl kadib adeera waxaa ku adkaatay ku noolaashiyaha tuuladii uu ku waayay jacaylkiisa wuxuuna soo aaday magaalada Kismaayo ee xilligaasi ku taalay maxkamaddii gobolka Jubbada Hoose waxaana maxkamaddan ay noqotay mid xirmatay isaga oo aan Maxamed weli go'aan ka helin waana halka uu weli 30 sano hor fadhiyo si uu cadaalad kaga helo gabadhii jacaylka ku qiyaantay balse isoo ilaa hadda moodiyo inuu dhawr ku hayo ciid ayaa laga buuxiyay runtii okay qisadan maanta انت سويت بروحي ترى انا كومنت نقول بستي ويندرتاد إلا هذا مو بغصون ده وكان ويان سديد وريدة مجرنة كمو بير لحسابيني بستي ويندرتاد إلا هذا مو بغصون ده وكان ويان سديد بحاد قادي ويسبوق يادي كيوجوبو بحادي بقي سادا كيان ديادا بيركنا كنورلي